warahmatullahi wabarakatuh. Soo dhawaada halkan waa janalka Faaliyaha Dhaab Kaafi Media. Waxaa idin hayaa warbixin muhiim ah. Warbixintaas waxay tahay waxaa soo dhacday galabta Bamba Jakula oo bishii afraad, laakiin qoysas qaar ay usoo dhicin Bamba Jakula. Waxaa koosgeliyay qoysaskaas ay usoo dhicin bishii saddexaad ay laba mar la baxeen Bamba Jakula ayagoona ka warqabin, laakiin waxaa la baxay dukaanlaha ganacsadaha u geysay Bamba Jakula ayaa la baxay laba mar. haddii aad aragto doorkan ay kusoo dhicin Bamba Jakula waxaad imaataa helpdesk isniinta ka bilaawato xafiiska WV imaanaysa, waa lagu sheegayaa dukaanlihii kaala baxay iyo macluumaadku kaala baxay iyo taaradu kaala baxay wax dhan baa lagu sheegaya. Marka waxaa jiraan qoysas badan oo 100 iyo something ah oo lagala baxay Bamba Jakula bishii saddexaad. waa qoysaskaas waxaa lagu leeyahay minuska lagu dhahaa maanta ayay ka baxday, waayo bishii afraad lacagteeda soo dhacday. lacagtii bishii afraad saddexaad aa la baxday laba mar, bishii afraad ka buuxisay minuskana uu ka baxay hadda. laakiin doorkan bishan kuma soo dhicin lacagtaadii oo kusoo dhici lahayd waxaad ku leedahay dukaanlihii la baxay ifo iyo xagadheera iyo dhagaxlii saddexda way leeyihin. waxaa lala galay dadkaas dukaanlaha dukaanmeesha ah shir baa lala galay. shirkaas oo loogu sheegayay inay dadka lacagtooda ay siiyaan. hadday siin waayaan tallaabada xigto sharciga ayaa laga qaadaya, waayo WB ayaga waxay galeen sharuuc, waxay saxiideen sharuucday saxiideen waxay saxiideen contract ay saxiideen. contract ay ku caddahay waxay qalad ay sameeyaan in laga jaasinayo oo sharcigeeda la marinayo. haddii dadweyne uu ku diido qof dukaanla ah in uu ku siiyo lacagtaadii bishii saddexaad uu laba mar la baxay oo meesha aad aragto in lacag kusoo dhicin, dukaankii ayaa tagaysaa waa fiirinaysaa. haddii dukaanka uu diido waxaad imaanaysaa xafiiska WB ayaa caddaynaya inuu dukaankii la baxay ina kale. haddii once lagu caddeeyo warqad lagu qoro xafiiska aad tagto oo dukaanka aad tagto uu ku diido, dib ugu soo laaba helpline-kii ninkii kuu qoro warqadda, taasoo caddaynayso in ninkaas telefoon lagu wici doono ama dukaankiisa loogu tagi doono, shaqaale loo diri doono, in laga qaadi doono lacagtaada. hadduu diidana sharciga WB oo qaanuunka u yeelo la marin doono. marka dadweynaha ku xiran bartayda YouTube-ka warbixintan ha sheegarayaan, ha u sheega dadka. dadweynaha waxaa rabaa in ay arrintaas si fiican u fahmaan. waxaa sharciga ah in dukaanlahaas lacagta uu bixiyo uu laba mar la baxay. dukaanlihii shakiyaa wuxuu imaan karaa xafiiska, waa loo sheegay taaradu la baxay, dukaankiisa inuu kula baxay, tiil buu leeyahay, dukaan number uu leeyahay, wax kastuu leeyahay, macluumaad iyo telefoon number uu leeyahay, wixiis dhan inuu kula baxay macluumaadka waa loo sheegayaa. sharciga waxaa loo sheegaya dukaan meesha xafiiska loo sheegaya ha imaado. dadkii loo sheegay inay bixiyaan shalay dad baa ogolaaday, dad baa dhahayay lacagta ma humnay iyo seen ku humnaa iyo seen ku ogaan karnaa. ayaga naftooda waa la shaki bixinaya. dukaanaha wuxuu xaq u leeyahay in la shaki bixiyo uu lacagtiisii inuu asaga la baxay in kale uu ogaado, maadaama suu dadkii waxooda u siiyo. marka waxaan leeyahay dadkii Bamba Jakula ay usoo dhicin, fadlan wixiina ka doonta dukaanlihii taam hore kala baxday laba mar ayuu la baxay. waxaan rabaa inaan sheego bishan oo maanta soo dhacday bishii afraad Bamba Jakula soo dhacday, nafarkii wax usoo dhacday 600 shilin lacag ah. 600 shilin nafarkii, labaalihi wax usoo dhacday 600, saddexlihi wax usoo dhacday 1800. sidii hore ahaan jirtay, wax laga bedelay ma laha. fadlan dadweynaha ha ogaadaan. daamka hore bishii saddexaad taar 23 waxaa la celiyay lacag 4 milyan ah ayaa WB dib ay u ceysatay. lacagahaas oo ah lacagaha dadweynaha in loo soo tuuray oo leemkooda ay ku jiraan ay ku keydsanayeen. marka lacag leenkaada ku keedsanin fadlan. 3 bil kasta lacagta waa lala noqonaya. 4 milyan lala noqday dadweyne Soomaaliya iska leh. dadweynaha oo xaafadda beneficiary iskama laha, waxaa iska leh dukaanlaha. leenka inuu ka qaaday dadkii oo dukaankiisa u yeelo oo dukaankiisa dhigtay oo maxallahay lacagtiisna u kala bixin. fadlan dadweynaha u sheegaynaa traderska u sheegaynaa in leemanka ay hayaan iska jagarayaan. waxa lacagta ay ka dhumayso waa dukaanle. dukaanlaha Soomaaliyeed ifo ay xagadheer iyo dhagaxlii meesha joogto iska jagareen kaararka ahayso leed dadkii lahaa magacyada ugu wada qor. ogow inta kaar kaa maqan inaad adiga minus ku jirtay in kale ogow dukaanka kala soco. dad baa 4 milyan 5 milyan 6 milyan sanadkiisa 2020 aan badbaadinay oo aan u sheegnay oo lacag ay ka maqan yihiin. dad baa 8 milyan 800 rabaa 800 oo lacag Kenya ah loo badbaadiy. dad baa 500 loo badbaadiy, dad baa 300 loo badbaadiy, dad baa 400 loo badbaadiy oo ka warqabin. marka fadlan ogow inaad dukaankaaga inay wax ka maqan yihiin iyo in kale, inay Bamba Jakula ka maqan tahay in kale, in dukaanlii lacagta 500 600 xabo Bamba Jakula aad haysa dukaanla tahay. marka ma haleelaysid kii maqan iyo kii kale ma kala garanaysid. marka ogow lacagta Bamba Jakula number magac ku qor, qof magaciisa dhaxan ku qor, buug u samee, sharci u samee. marka inaad kala ogaanaysaa waxaad inaad kala ogaato ayay muhiim ku tahay. lacagtaada ay ka dhumaysaa. WB lacagta meesha ku aragtay lala bixin oo la isticmaalin way la noqonaysaa. sharciga taas ah 3 bilood kasta waa la noqonaya. marka dadweynaha intaasaan u sheegaynaa.
channelka subscribe saar like saar share والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.